halkani waa magaalo ganacsiyeedka degmada Togwajaale waxaana maanta taliyaha guud ee ciidamada booliska Somaliland Sareeyagaas Maxamed Aadan Saqali Dabagale iyo saraakiil uu hogaaminayo ay soo dhaweyn balaaran ku qaabileen komishaneerka guud ee ciidamada booliska federaalka Itoobiya ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada booliska dowladda deegaanka Soomaalida iyo waliba taliyaha guud ee ciidamada xoogga gaarka ee New Booliska waxaana saraakiisha wafdigani oo soo galbiyay gudaha magaalo ganacsiyeedka degmada Togwajaale gaar ahaan guriga martida ee magaalo ganacsiyeedka degmada Togwajaale oo saraakiishan labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya ku yeesheen kulan ay albaabada u xidhnaayeen kaasi oo laga wada hadlayay xoojinta amniga labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya si la iskaga kaashan lahaa la dagaalanka wax kasta oo amniga labada dal khatar ku ah iyo sidoo kale xoojinta amniga labada dal iyo sidii labada dalba ay uga wada shaqayn lahaayeen amniga dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa leh xiriir qoto dheer oo saaxiibtinimo jaarnimo ganacsi iyo mid amni kulankani wuxuu qayb ka yahay kulanada labada dal ay ka wada shaqeeyaan ee kula xiriira